Abwaan Cabdilaahi Cabdi Jaamac oo ka tirsan Bahda Suugaanta ee gobolka Togdheer oo muddo 2 toddobaad ah ku xidhnaa magaalada Burco ayaa xukun maxkamadeed ku riday maxkamadda gobolka Togdheer. Abwaanka ayaa lagu eedeeyay inuu ku kacay aflagaada madaxweyne sida uu sheegay garsoorihii xukumayay eedeysanaha. Abwaan Cabdilaahi oo lagu eedeeyay aflagaada madaxweyne ayaa lagu xukumay 1 sano iyo 3 bilood oo xadhig ah. Abwaan Cabdilaahi Cabdi Jaamac ayaa tiriyay maase gabay oo uu kula hadlayay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Gabadhii muuqaalka ka duubtay abwaanka oo iyadu goobta maxkamadda ka maqnayd ayaa lagu xukumay 2 sano oo xadhig ah iyo 500 oo lacagta Somaliland ah kadib markii ay ka baxsatay sharciga, waxaana eed looga dhigay inay muuqaalkii ay duubtay ee cayda ahaa faafisay ama ay qaybisay. Dastuurka Somaliland ayaa damaanad qaadaya in qofka muwaadinka ee dalka u dhashay uu dareenkiisa cabiri karo qoraal, cod iyo sidoo kale suugaanba. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka CBA.